Subscribe sar si aad u hesho muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Rayaan, waxaan ahay dambi baarihii yaraa. ma i xasuusataan xilligaani waxay ahayd xilli bareeg ah. aniga iyo saaxiibadeyna waxaan fadhinay barxadda iskuulka. waxaan ku idhi, saaxiibayaal, anigu caajis ayaan dareemayaa, ka warrama haddii aan raadino halxiraalayaal si aan uga jawaabno. Ilyas ayaa igu yidhi, halkeen ka keenina halxiraalayaashaasi si aan u xalino. Nada ayaa tiri, ka warrama haddii aan maktabadda aadno, waxaa jirta meel loogu talagalay kaydka halxiraalayaasha, halkaasi ayaana tegaynaa. waxaan ku idhi, hagaag, haddaba ina keena. dhammaanteen waxaan aadnay maktabadda, waxaana tagnay qaybta gaarka ah ee kaydka halxiraalayaasha. anigu waxaan akhrinayay wargeysyadii hore, laakiinse ayagu waxay akhrinayeen sawirrada iyo buugaagtii hore. markaas ayaa ishaydu waxay ku dhacday ciwaan lagu qoray far waaweyn. waxaan ku idhi, kaalaya ciwaankan fiiriya. waa cunug yar oo la dafay oo ka dhashay qoys maalqabeen ah. Nada ayaa tiri, maxaa arrintaasi wax la yaab leh ka dhigay? waa arrin caadi ah, waxaa laga yaabaa in dadka dafay ay lacag u baahan yihiin. waxaan ku idhi, maya, wiilkan waxaa lagu magacaabaa Wasiim, wuxuuna ku nool yahay magaalada deriskeenna ah. arrinta la yaabka lehna waxay tahay in kiiskiisa ay maxkamaddu soo xirtay. Ilyas ayaa yidhi, waad saxan tahay, waa cunug ka dhashay qoys maalqabeen ah, mana ahayn in kiiskiisa ay maxkamaddu soo xirto. Nada ayaa tiri, ma ku fakeraysaan waxa aan ku fakerayo? waxaan ku idhi, arrintaasi annaga waa inoo fududahay. maqaalkii ayaan soo qabannay, kadibna waxaan diiwaan gelinay waxyaabaha ugu muhiimsan. waxaan ku idhi, marka isbuucaani uu dhammaado oo aan fasax galno, waxaan aadaynaa guriga Wasiim, halkaas ayaana dembi baaris ka bilaabaynaa. Ilyas ayaa yidhi, sideena loogu oggolaanayaa inaan gudaha galno? asagu waa qasri weyn oo leh shaqaale iyo waardiyo. Nada ayaa tiri, arrintaasi aniga ii daaya. maalintaasi waan kala tagnay. markii isbuucu dhammaaday ayaan isku nimid, waxaana tagnay gurigii Wasiim. Nada ayaa boorsadeeda soo furtay, saa waxay ku soo shubtay qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan. markaas ayaan u tagnay waardiyihii qasriga, waxayna ku tiri, annagu waxaan u aruurinaynay lacag iyo alaabta lagu ciyaaro xarunta agoomaha lagu xanaaneeyo, waxaana doonaynaa inaad noo oggolaato inaan gudaha galno. wuxuu nagu yidhi, suga inta ay amar iga siinayso marwadu. taleefanka ayuu kala xiriiray, kadibna wuxuu nagu yidhi, soo dhowaada. way oggolaatay inaad gudaha soo gashaan. gudaha ayuu noo soo waday, wuxuuna na geeyey beertii qasriga. halkaasna wuxuu noogu geeyey marwadii qasriga iska lahayd oo fadhisa. shaax ayay cabaysay, codka shimbiraha ayayna iska dhagaysanaysay. wayna soo dhoweysay markii ayna aragtay, waxayna tiri, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan carruur yaryar ku arko gurigayga dhexdiisa. ii sheega waxa aad samaynayseen. Nada ayaa tustay alaabtii ay waday, waxayna ku tiri, alaabtan annaga ayaa soo gadnay oo agoomaha ayaan u soo gadnay. waxay nagu tiri, waa fikrad wanaagsan, laakiin waxaad isoo xasuusiseen wiilkaygii Wasiim. waxaan ku idhi, annagu wargeyska ayaan ku soo aragnay arrintiisa, aad ayaana uga xunnahay inaad wiilkaasi weyseen. aad ayay u murugootay. waxaan ku idhi, laakiin sideed ku awoodi weyseen inaad ilaa iyo hadda heshaan cunugaasi? waxay tiri, meel kasta waan ka raadinay oo ma aanan arkin asagoo nool iyo asagoo dhintay intaba. sannado ayaa ka soo wareegatay, ninkayguna waa uu joojiyey inuu raadiyo, wuxuuna sheegay inuu dhintay. laakiinse anigu ilaa iyo hadda ma rajo dhigin. maalin kasta codkiisa ayaan maqlaa, waxaana hubaa inuu nool yahay. markaas ayaan anigu arkay qol yar oo ku dhex yaalla qasriga. waxaa ka soo baxday haweenay waayeel ah, taas oo wadata dharkii shaqaalaha. waxbay qarinaysaa, midig iyo bidixna way iska fiirinaysaa. bac ayayna alaab ku wadaa, waxayna aad iskaga fiirinaysaa marwada. markaas ayaan anigu dabagalay, daaqadda bannaanka ayaana ka fiirinayay. bacdii ayay ku riday weelka qashinka. waxaan isku dayay inaan dhaqdhaqaaqeeda dabagalo, laakiinse jikada ayay gashay, waxayna sii wadatay inay hareeraha iska fiirfiiriso. ugu dambayn waxaan tegay daaqadda xafiiska mudane Xaasim. waa Wasiim aabbihiis. shay ayuu gacanta ku haayay, waxaan u malaynayaa inuu yahay bastoolad. waardiyaha ayaana hortiisa fadhiyey, kaasoo madaxiisa raaricinayay. si fiican ayaan u fiiriyey si aan u arko waxa meeshaani ka dhacaya. wuu isoo fiiriyey, kadibna waxaan u soo orday halkii ay fadhisay marwadu.
waxaan u imid saaxiibaday waxayna igu dhaheen halkee ayaad jirtay, waxaan doonaynay inaan baxno. isla markiiba mudane xaasim ayaa iga daba yimid, marwada ayuuna ku yidhi rad way kuwaaniya yihiin. waxay ku tiri waa Wasiim saaxiibadiis. wuxuu ku yidhi Wasiim goormee ayuu saaxiibo lahaa, ha igu kallifin inaan laayo carruurta deriska. markaas ayaan ku idhi marwo noo oggolow inaan iska baxno, annagu waan baxaynaa. markaas ayuu yidhi mar dambe halkaan ha ku soo laabanina. waxay ku tiri carruurta sidaas ha u canaananin, waad og tahay inaan annagu carruur u xiisnay. kadibna gurigii ayaan iskaga soo baxnay, aniguna saacaddayda ayaan si kas ah dhulka ugu tuuray anigoo doonaya inaan hadhow ayada darteed u soo laabto. saaxiibaday ayaana uga sheekeeyey wixii aan arkay. Nada ayaa tiri waxaa laga yaabaa inay jirto arrin qarsan. haa, Ilyaas ayaa yidhi waa inaan waardiyaha weydiinno, waxaa laga yaabaa inuu arrin qarinayo laakiin uu mudane xaasim ka cabsanayo. waxaan ku idhi ma waalatay, suurtagal ma ahan inaan su'aalo toos ah weydiinno, marka ugu horreysa waa inaan caddaymaha aruurino. habeenkii ayaan ku dheelmannay qasrigii, gudaha ayaan u galnay, toosh yar ayaan wadanay, asaga ayaan isticmaalnay. waxaan ku idhi waxaan ka bilaabaynaa weelka qashinka si aan u ogaano wixii ay shaqaaluhu ku ridaysay. bacdii ayaan ka soo bixinay, kadibna waan furnay. saa waxaa ku jira dharka wiil yar oo wasaqaysan. wiilkaani wuxuu u muuqdaa mid annaga nagu da ah. waa la yaab, ma Wasiim ayaa iska leh dharkan? Ilyaas ayaa yidhi ma aragtaan waxa aan arkayo? markaas ayaan maqalnay cod korkeenna ka yeeraya. maxaad halkan ka qabanaysaan ayuu nagu yidhi. waan qaylinay, kadibna waan soo cararnay. mudane xaasim waa uuna qabtay, kadibna waardiyihii ayuu u yeeray. wuxuuna ku yidhi sideed kuwaan ugu oggolaatay inay gudaha soo galaan? wuxuu yidhi maba aanan arkin, war halkee ka soo gasheen dooliyaal yahow? waxaan ku idhi naga raalli noqo, saacad ayaa halkan iga dhacday, ayada ayaana raadinaynay. markaas ayuu nagu yidhi socda bannaanka aada, haddii aan mar kale idin arko adinkoo meeshan ku jirana waan idin ciqaabi doonaa. bannaanka ayuu noo ceyriyey, albaabkiina waana laga xirtay. waxyar ayaan ka soo fogaanay, kadibna waxaan go'aansanay in derbiga bannaankiisa aan ka fiirinno. mudane xaasim wuxuu la taagnaa waardiyaha, wuxuuna dhahayay ma ii keentay wixii aan kuu dirsaday? wuxuu ku yidhi arrintu way adag tahay mudane, waxaan ka cabsanayaa in laygu ciqaabo. maxaan booliska u sheegayaa haddii ay ii qabtaan? wuxuu ku yidhi waxba igama gelin arrintaas, waa inaad berri ii keento wixii aan kaa dalbaday, haddii kale waan ku dilayaa. saaxiibaday ayaan ku idhi waa inaan u yeero adeerkay dembi baare Maahir, haddii kale ma ahan inaan halkan iska sii taagnaano. Ilyaas ayaa yidhi waad saxan tahay, waa in arrintaani boolisku uu soo farageliyo. adeer Maahir ayaan la xiriiray, arrinta oo dhan ayaan uga sheekeeyey. markaas ayuu igu yidhi wiilkaygii Rayaanow, maxay yihiin kiisaskan habeen ee aad hurdada nooga qasayso? waxaan ku idhi waa inaan dhaqsanno ka hor inta aysan wax walba dhicin. markaas ayuu adeer Maahir xaggeenna soo aaday, wuxuuna soo watay xoogaa askar boolis ah iyo qaybta baaritaanada. markaas ayuu derbiga qasriga ka booday, gudaha ayuuna u galay. kadibna wuxuu galay qolkii haweenaydii shaqaalaha ahayd. markaas ayuu qolka gudihiisa ku arkay meel duleesha. meeshii duleeshay ayuuna galay, kadibna wuxuu galay qol kale oo ku yaala qaybta hoose. saa wiilkii yaraa ee Wasiim ahaa ayaa halkaani ku xirxiran, kaas oo ku jira xaalad aad u liidata. markaas ayuu adeer Maahir la soo xiriiray booliskii bannaanka joogay si ay gudaha u soo galaan. kadibna waxay boolisku qabteen mudane xaasim, haweenaydii shaqaalaha ahayd iyo waardiyihii. marwadii ayaa u soo oroday dhanka wiilkeeda, laabteeda ayayna gelisay. ugu dambayn dhammaantood way qirteen dembiyadoodii. waardiyihii ayaa yidhi anigu arrintaani waxba kama aanan ogeyn. mudane xaasim ayaa iga dalbaday inaan u keeno daawooyin fara badan oo daroogo ah, laakiinse iima uusan sheegin waxa uu ku samaynayo. haweenaydii shaqaalaha ahaydna waxay tiri mudane xaasim ayaa iga dalbaday inaan wiilka yar daryeelo anigoo aan qofna u sheegin, arrintaas beddelkeedana uu mushaarka ii labanlaabi doono. anigu wiilka yar ayaan dharkiisa dhaqi jiray, weelka qashinka ayaana ku soo shubi jiray, mararka qaarna gurigayga ayaan ku soo dhaqi jiray si uusan arrintaasi qofna u ogaanin. adeer Maahir ayaa marwadii ku yidhi maruu sideed ku ogaan weysay in wiilkaadu uu meeshaas ku jiray? waxay ku tiri anigu marna ma aanan filanayn in waxaani ay qasrigayga dhexdiisa ka dhacayaan, sidoo kalena anigu dadka oo dhan waan ku kalsoonaa. sannado badanna ma aanan gelin qolka haweenayda shaqaalaha ah, mana aysan jirin sabab aan darteed u galo.
markaas ayuu adeer Maahir yidhi, adigu Xaasimow maxaad wiilkaada u qarisay? Wuxuu yidhi, wax walba ayada ayaa sabab u ah. Ayadu waa maalqabeen, waxay haysataa dhul iyo hanti aad u fara badan, laakiinse ayadu waa bakhiilad. Waxay ku tiri, ma waalan tahay? Ma sababtaas ayaad intaas oo dhan wiilkayga iga qarisay? Wuxuu ku yidhi, intaas ka badan ayaad adigu mudan tahay. Adeer Maahir ayaa ku yidhi, joojiya isqabqabsiga oo hadalkaada sii wado. Markaas ayuu yidhi, aniga shirkadaydii ayaa burburtay, xaaskayga ayaana ka dalbaday inay lacag i deymiso, laakiinse inkasta oo aan in badan isku dayay ayadu waa ay diiday. Markaas ayaan adeegsaday koox gaangiistaro ah si ay wiilkayga u soo dafaan, maadaama ayadu wiilka ay aad u jeceshahay. Arrintii ayaana sameeyey, laakiinse ayadu way diiday inay si degdega lacag ku bixiso. Intii aan hawshaasi ku guda jiray ayuu wiilku i arkay anigoo la hadlaya kooxdii gaangiistarada ahayd. Waxaan ka cabsaday inuu arrintayda fashilo. Waxaan ka fekeray shirkadaydii iyo weliba sumcadaydii, waxaasoo dhan way burburayaan, laakiinse waa inaan ka aargoosto xaaskaygii xumeed, taas oo diiday inay garabkayga istaagto. Qorshihii ayaan bedelay, waxaana bilaabay inaan ku qariyo qolka haweeneyda shaqaalaha ah. Markaas ayay xaaskaygu tanaasushay, waxayna ogolaatay inay lacag fara badan bixiso si ay wiilkeeda u hesho, laakiin waxaasi mar hore ayaa laga rabay. Aniga iyo haweeneyda shaqaalaha ahna waxaan isku waafaqnay inay wiilka ayadu si wanaagsan u daryeesho, laakiin isbuucaas gudihiisa ayuu wiilku iga xanuunsaday. Waxaana waajib ugu ahayd inaan isbitaalka u qaado. Waxaana waardiyaha ka dalbaday inuu ii keeno daawooyinka carruurta lagu daroogeeyo si uusan u qaylin marka aan isbitaalka u qaadayo. Qisada oo dhan intaas ayay ahayd. Ugu dambeyn waxay maxkamaddu mudane Xaasim iyo haweeneydii shaqaalaha ahayd ku xukuntay xabsi, halka ay iska sii daysay ninkii waardiyaha ahaa. Booliskuna waxay bilaabeen inay annagana karaameeyaan maadaama kiiskani aan juhdi badan ku bixinay. Saaxiibayaal, qisadu halkaas ayay ku eg tahay. Ha iloobina inaad muuqaalka like saartaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadino. Subscribe saar si aad u hesho muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid.